فيوبي سماها كمدوهني ضايعها أركتدا فيوبي سماها كمدوهني قرنك الاسم يا أركان غدا قحيقة يا أركان لما يصير ما يا أركان ولا قد شيء أركان نمعي أنا لك بي أركان قرنك الاسم يا أركان غدا قحيقة يا أركان لما يصير ما يا أركان وياي دولة حلكيدي way ka soo baxday marka iskuulka la inoo dhisay inagana waxay nagu waajiba iskuulka inaynu daryeelno dadkiisii keen oo inu buuxino oday wal iyo islaam waliba ilmaheeda aynaan oran adigi waa baxsaday iyo waxba shalay daawo cuntay looran maayo iskuul baa halkan ka jabay iyo iskuul baa kan keen ninkaana aad ugu duceeyay yar iyo weyn iskuulkaana hore maynaan haysan laakiin waa la sheegay ilaahay maanta qurux buu dhasiyay beeraha kale maanta waa ka qurux badan inay nagu gadaaman waxa kaliya meeshaasi anigana xusuusin lahaa maadaama oo master Chiro gudoomiyaha gobolka horta halkan waxa weey meeshii Ingiriisku sahamiyay ee biyaha Hargeysa laga qaadayay ubadka inta faraleega inta soo buura joogan iskuul haysan arabsay laaga bar wuxuu dhaxeeyay iskuul aan jirin marka farxadda aniga ay tahay gaara deegaanka waxaan leeyahay caruurta iskuulka ha timaado waxaan u ballan qaadaynaa ka wasaaradda waxbarasho ahaan inaan idinka qoob qaadin u iman maayo ahsaaniyaba ma shaqada iyada inaanu kaantaroolo in caruurtu wax la baray kharashkan iyo lacagtan inaan cid la ku dhicin iskuulkan aan u banaynay deegaankan kediga oo ay ahayd un dhawaan muddo laga joogo ugu badnaan 2 bilood maalintii dhagax dhigaynay waa noo farxad inuu isla markaana xarigeedii ka jirno runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan xarig ka jarnaa iskuul dhamaaday taas waxa cadeynaysaa inaynu noqonay dad xag horumarka u socda oo doonaya inay degmadooda dadka horumar gaarsiiyaan halkan maamulka iyaga gobolka oo ka wakiila madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliland waxaanu u soconaa waxa weeye waa daboolitaanka baahiyaha dadweynaha kala duwan ee gobolka waxaanu ku shaqeynaa siyaasadda madaxweynaha qaranka ee ah in dadka reer Soomaaliland khaasatan gobolka Gabiley dawladdu baahiyahooda aasaasiga kaabayaashooda dhaqaalaha iyo duruufahooda intii awoodeeda maalin walba runtii wax loo qabto nasiib baad u hesheen in halkan caafimaadkii iyo waxbarashadiiba maanta la idin furay oo ay idin shaqeynayaan intaas oo dhan waxa la isku soo raacay in kidiga runtii loo furo iskuulka iyo health boska runtii wax weyn waana waajib dawladda saaran aan gudanayno waana shaqadeedii insha Allah idinkana warba idin la jira anana warba nala jira Soomaaliya waxa tira Arab laad aslama tilmaamay ana warba nala jiro wixii waxaas meeshaas ku shaqeyn lahayd haday noqoto health boska iyo haday noqoto iskuulkaasba wuxuu ku shaqeyn lahaa wana la ka rabaa idinkana waxa la ka rabaa cid ku shaqeysan lahayd wax ku baran lahayd saad ardaydii u keen lahaydeen oo aad runtii waxbarashada uga faa'iideysan lahaydeen caruurtiina aad waqti badan ugu hor lahaydeen